jaamacadda Lafole waxay ku taalaa duleedka koonfur galbeed ee magaalada Muqdisho. Waxa ay caasimadda u jirtaa 22 kiiloomitir. Waxay wax ka yar 6 kiiloomitir u jirtaa degmada Afkooye. Dowladda Soomaaliya oo caawinaad ka helaysa dowladda Mareykanka ayaa 1963 hirgelisay dhismaha xarunta tababarka macallimiinta. waa qaybtii tiyaatarka oo ardayda markay xafladaha qabanayaan oo lagu qudbeyn jiray iyo qaybta bingaha way iskugu jiraan oo ciyaarta bingaha lagu dheeli jiray. muxuu masaajidkan ugu ekaan waayey masaajidadii carabta iyo islaamka architecture-kii caadiga ahaa ee la garanayay xilligan ama muddada la sameeyey masaajidka oon ku helay taariikhdu inay tahay lixdamaadkii waxa socday concept ama fikir design oo loo aqaano modernist ama modernism waxa la aaminsanaa waxa yar inuu qurux badan yahay yacni waxa aan sharaxaad badan lahaynin inuu ka qurux badan yahay waxa xoog loo sharaxo waayo caalamka ee wuxuu ka soo gudbay xilli aad sharaxaad waqti loo geliyay iyo qarash badan. bismillaahir rahmaanir rahiim jaamacaddu waa kulliyadii hore ee waxbarashada jaamacadda Lafole waxayna ka koobnayd qaybo badan oo kala duwan oo wax lagu baran jiray waxayna soo saari jirtay qaybihii macallimiinta iyo qaybihii waxbarashada caadiga ahayd marka waxa lagu tababari jiray macallimiinta Soomaaliyeed kulliyado badan way lahaan jireen marka sida juqraafiga iyo historyga iyo xisaabaadka iyo physics-ka iyo biology-ga chemistry-ga ayaa lagu bari jiray waxaana wax ka dhigi jiray macallimiin ajaanib ah isugu jira American iyo Carab intaba ayaa inta badan ugu weynaad jaamacaddu marka qaybo kala duwan ay leeyihiin qaybtan hadda anaga aan iskuulka kalkaal aan ku dhigno qaybta hoose waa qaybtii laababka qaybtan soo jeedo oo albaabada cagaaran qaybta laababka ardayda practicada lagu siin jiray qaybtan kalena waa fasaladii ardayda ay wax ku bari jireen waa qaybtan waa fasalo qaybtan kalena ayadana waa fasalo kale waa qaybtaas kale oo tooska ah ku aadan waa qaybtii tiyaatarka oo ardayda markay xafladaha qabanayaan oo lagu qudbeyn jiray iyo qaybta bingaha way iskugu jiraan oo ciyaarta bingaha lagu dheeli jiray qaybtan oo kale masrax oo kale u sameysanta markii madaxweynaha uu soo booqanayo oo kale ayuu u imaan jiray oo xasan aad samatar meelaha uu ka heesi jiray kamid tahay jaamacadda Lafole yes sidaan taariikhda inuu soo gaartay waxa kale oo taariikhda kamid ah inuu milizanaawi uu ka baxay jaamacadda Soomaaliya yes oo waliba kitchenkaas meelahaas ku yaalo oo ka cunteyn jiray taariikh ahaan yes marka taariikhda waa faacweyn tahay marka maadaama intaan aan soo gaaray maqalkeyga iyo maadaama aan jaamacadda bixin jirtay kuweeba ugu fiican tahay luqadda iyo taariikhda marka meeshan oo kale waxa aad u degnaan jiray professorkii weynaa oo caalimka ahaa oo ummadda Soomaaliyeed yaqaanay professor Ahmed Jimcaale oo loogu magac diri jiray professor Castro degnaan jiray jaamacadda kamid ah tan tii Lafole la yiraahdaa beeraha waxay ku taalaa meel la yiraahdo Carbiska agteeda xigta oo qayb kala gooni waa kala duwanaan jireen labada jaamacadood waa daris laakiin way kala duwan yihiin qayb ahaan. Masaajidkan aynu joogno waxa la dhisay 1973 kan isagoo waqti dheer dhisnaa muddo dheer dhisnaa ayaa aanu isbedelin dhismihiisu mas oranaysa dhismahan nimka ku muuqda daaqadahan shabagan ayaa la dhisay 1973 halkan ku qabo qaybtan waxa weeyaan qaybtii masaajidkan nimka ku jirnaa marka qaybtan waxa weeyaan qaybtii lagu weysaysanayay masaajidkan aynu ku sugannahay imika waxa ku taala minaaradii ugu dheereed ee masaajid aan ku arko insha Allah masaajidkan gudaha u gali doona masaajidku aad iyo aad u qurux badan yahay qurux badanna waa loo dhisay ina mariya masaajidku jaamacaddu ku yaala marka albaabkii laga galayay oo magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir uu yahay xeeb ku yaalo masaajidkan marka soo gasho leyd qabow ayaa ku soo galaysa waxa saamaxaysa qaabka masaajidka loo dhisay halkan Cabdinaasir baa sheegay hore uma arkaynin waxa weeyaan meesha leydka laga shido lagana baqtiyo waxa tiraahdaa meesha laga daaro ama laga damiyo marka waa bari weeyaan imika waxa noocan lama helayaa laga yaaba lama helayo
marka meeshii laga bakhtiyay leerka oo qadiimi ah marka masaajidka leer baa dhinac kasta ka soo galaysa. halkan waa jaajuur si nashqad qurux badan la isku saaray. jaajuurka si qurux badan baa la isku saaray ama waa dhagax waddanka lagu sameeyey. ما شاء الله تبارك الله. masaajidku wuxuu dhisan yahay qaab aad iyo aad u qurux badan. tirar waaweyn baa dhinacyada masaajidka laga dhisay. marka xagga sare si koofiyadoo kale sagbad weyn baa xagga sare haysata. marka sagbada hoosteeda way bannaan tahay. agaarkaasoo dhan masaajidku ka furan yahay. marka hawo badan baa ka soo geli kartaa xagga sare. sidoo kale dhinacyadan tirarka ku beegan waxaa ka soo gelayso hawo iyo light. marka masaajidku sidii goob oo kale u wareegsan yahay. weligii ma arag masaajid sidan u dhisan. waxa weeyaan farshaxan iyo nashqad aad iyo aad looga shaqeeyey. ma sha Allah. xagga sare ku qabo. xagga sare waxa la moodaa koofiyadoo kale. niyow goobtaan u jeedid aadka quruxda badan aadka looga shaqeeyay waxa waaye waa goobtii biyo mareenka ahaa ee jaamacadda lahayd. jaamacadda waa loogu talagalay waa budget loogu talagalay ahayd in maarkino biyaha ay ka baxaan meeshaan oo markii xilli roobaad markii la gaaro inay ka baxaan loogu talagalay si fiican u gudbaan. waa 73dii mashruuc loogu talagalay waay. dadka marka dad aad u dadaalayo waa injineerada waaga gacanta ku hayay dhisabaashan kuleeto shisheeye ajnabi badan oo dhisay u badan tahay 90%. marka cajiib waay inta laagta biyaranada fiirad halkaas ka sii baxaya ultimo. qaybtan imika aynu soo gaarnay waxa weeyaan qaybtii lagu ciyaari jiray basketballka jaamacadda. weli garoonkii ama meeshii lagu ciyaarayay way sii muuqataa. barihiina way samaysan yihiin. jaamacaddu aad iyo aad bay u weyn tahay. qaybo badanna way ka kooban tahay. meelo badan oo wax lagu ogaadana way leedahay. marka waqtigu nooma saamaxin in aanu dhammaan goobahaasoo dhan aanu soo boqonno. insha Allah waxaan rajaynayaa in uu muuqaalku idin qanciyey. inkastoo aad in badan aragteen jaamacadda Lafoole laakiin aniga waxay ahayd barkii koobaad imaado jaamacadda Lafoole. aad baan ugu faraxsanahay asxaabta isoo dhiirigelisa subscriberskayga. waa inoo mar kale iyo muuqaal kale.